halkan waa xanta wararka ku biirow ka mid noqda daawadayaashii nagu xiran leegaraya shirgaraya qaybta hoosan aarahdiina waxay idinla tahay nagu dhaafa waxyaabaha daawan doontaan barnaamijkan aan kusoo gudbin doonana waxaa ka mid noqon doona daawadayaal saaxiibayaal leftigreen oo faa'iido ka baxsan iskaashiga amniga ka helay jigjiga barnaamijka ayaan ku falanqeyn doonaa xog kooban oo aanu ku falanqeyn doonaa arrintaasi sidoo kale waxaad daawan doontaan barnaamijkan aan idinkugu soo gudbin doonaa hadduu alla weyne raalli ka noqdo daawadayaashii saaxiibada sida tooska nagu xiranow halkana aanu ku falanqeyn doonaa aadan maxamed nuur madoobe oo wada dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay oo doonayo in markaasi sharciga uu kula tiigsado mid ka mid ah xubnihii baarlamaanka ee foodada ka sameeyey dhowaan golaha shacabka iyo mas-uul sare oo ka tirsan hay-adda NISA oo maalmo ku xiran muqdisho barnaamijka ayaynu ku falanqeyn doonaa qodobada iyo kuwa kale ayaanu ku falanqeyn doonaa iyo soo dhawaada halkan waa xanta wararka daawadayaal saaxiibayaal ku biira oo ka mid noqda daawadayaasha saaxiibada sida tooska nagu xiran leegaraya shirgaraya qaybta hoosan aarahdiina waxay idinla tahay nagu dhaafa leftigreen ayaa faa'iido ka baxsan iskaashiga amniga waxa uu ka helay jigjiga madaxweynaha koonfur galbeed cabdilcasiis xasan maxamed leftigreen ayaa maalintii saddexaad ku sugan caasimadda dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya isagoo kulamo la leh madaxda saraakiisha amniga waxgaradka deegaanka cabdilcasiis leftigreen oo soo dhaweyn ka helay dhigiisa dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya mustafa maxamed cumar cagjar ayaa kulamo la qaatay saacadihii la soo dhaafay madaxda deegaanka si kasta oo ay xaaladda noqoto isagoo oo kala hadlay xoojinta la dagaalanka argagixisada iyo iskaashiga labada maamul ee amniga sidoo kale leftigreen oo uu wehlinayo madaxweyne cagjar ayaa booqday jaamacadda jigjiga university madaxda jaamacadda ayaana ugu deeqday koonfur galbeed waxbarasho bilaash ah scholarship oo dhan 30 arday waa socdaalkii ugu horeeyey ee uu Itoobiya ku tagay madaxweynaha koonfur galbeed tan iyo doorashadiisii waxaana safarkiisu ku dambeeyay kadib duulaanka al-shabaab ee ku qaaday deegaano ka mid ah dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya oo xuduud wadaaga yihiin gobolka Bakool ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya NISA mas-uul sare oo xil ka haya hay-addaasi ayaa ku xiran muqdisho mahad maxamed salaad ayuu u xiran yahay waxaana loo haystaa baadigoobka kiiska Graan Tahliil Faarax sida laga soo xigtay qayb ka mid ah qoyska sargaal ka tirsan hay-adda NISA ayaa muddo ka badan isbuuc waxa uu ku xiran yahay guri ku yaala muqdisho sargaalkaasi oo lagu magacaabo cabdisalaam cali xaashi ayaa muddo ka tirsanaa madaxda ugu shaqada badan hay-adda NISA isagoo xilligii Fahad Yaasiin Xaaji Daahir harunta habargadiijo ka howlgali jiray xafiisna ku lahaa cabdisalaam ayaa waxa uu horey u soo noqday madaxna markaasi uga soo noqday waax muhiim ah oo hoos tagta taliska hay-adda NISA iyadoo weli la ogeen waxa loo xiray ehelada cabdisalaam xaashi waxay sheegayaan eheladu in markaasi cabdisalaam xaashi muddo isbuuc ka badan ay daydayayaan xogtiisa oo telefoonadiisii qaar dansan yihiin kuwana markaasi aan la qabanaynin iskugu jiraan oo markii dambe ogaadeen inuu u xiran yahay hoggaanka sare ee hay-adda NISA waa siday u dhigeen eedeynta ama hadalkee sargaalka ayaa ka shaqaynayay muddooyinkii dambe qaybta cusub ee hay-adda NISA ee ku dhow xabsiga godka Jilacow waxaana eheladiisu ay xaqiijiyeen in lagu xiray amar uu bixiyey agaasimaha NISA mahad maxamed salaad cabdisalaam cali xaashi ayaa lagu xiray goob qarsoodi ah xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo xarigiisa kadib dabagal ku sameeyey ayaa loo diiday inay u tagaan iyadoo aan caddeen sababta loo xiray waxaana xogaha qaarkood ay sheegayaan in loo haysto mid ka mid ahi ahaanshiyaha saraakiisha NISA wada shaqaynta la lahaa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir mahad salaad ayaa baaris gaar ah ku bilaabay kiiska Graan Tahliil Faarax cid walba oo loo arko inay xarunta ka shaqaynaysay waxna ku ogaan karto maqane Graan Tahliil Faarax iyo arinteeda ayuuna si gaar ah uga socdaa dhaqdhaqaaqooda halka qaarkoodna saraakiishii hore hay-addu ay horey u raaceen
Fahad oo Turkiga saldhigtay. Sida kol sii horeysay aanu barnaamijyadeena qaar idinkugu baahinay xubno isaga baxay dalka ee aaday markaasi dalka dibaddiisa. Waa hagaag daawadayaal saaxiibayaal, waxaan eegi doonaa markan oo aanu falanqeyn ku sameyn doonaa Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa kulan la qaatay shir guddoomiyana kulan uu la qaadanayo xubnihii isla isagu uu magacaabay ee dabagalka caagii lagu tuuray iyo dhacdadii 7 bishan. Guddoomiyaha Golaha Shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa la kulmay guddida ku meel gaarka ah ee la soo saaray baaritaanka dhacdadii foodada ahayd ee ka dhacday fadhigii baarlamaanka 7 bishan. Guddoomiyaha Aadan Madoobe ayaa buuxiyey booskii uu ka cudur daartay xildhibaan Odawa ee xubinnimadii guddidaasi, waxaana uu magacaabay xildhibaan Maxamed Abukaate. Waa dhacdo ugub ah Golaha Shacabka oo markaasi in guddoonka lagu tuuro caag ama wax markaasi agab ah inta badan marka isir istaagga iyo buuqa ay sameeyaan xildhibaanada ayaa dhici jirtay inay markaasi miiska garaacaan iyo in mikrofoonka jibiyaan. Ma dhici jirin isku day gacan ka hadal ah oo guddoonka loola tago. Waxaa la filayaa in tallaab adag laga qaado xildhibaanada rabshadaha ka abuuray kulankii xukuumadda lagu ansixinayay. Si kasta oo ay xaaladda noqoto, Cabdiraxmaan Odawa oo ah xildhibaan ayaa kol hore iska diiday arrintaasi iyo in markaasi uu qayb ka noqdo guddidaasi, isaga oo markaasi sheegay in uusan dooneynin in arrintaasi uu qabto, isaga oo ka cudur daartay arrintaasi. Taasi oo soo dhoweyn ballaaran uu markaasi kaga helay dadyo kala duwan oo iyagu markaasi arrimahaasi siyaabo kala duwan uga warbixiyey. Si kastaahi oo ay xaaladda noqoto, daawadayaashii saaxiibada sida tooska inagu xiranow, Odawa wuxuu sheegay inuu ka cudur daaranayo qabashada xilkaasi, isagoo sidoo kalena fariin u furay xildhibaanada cusub in anshaxa ay ilaaliyaan, taasoo u muuqatay inuu la hadlayay xubinka ama xildhibaanka fagaaraha la istaagay inuu caag ku tuuray guddoomiyaha Golaha Shacabka. Waxaana u muuqatay inuu markaas isagu isku markhaati furay, sababayna in dib loo baadigoobo muuqaalada wixii goobta ka dhacayay. Si kasta oo ay xaaladda noqoto, doorashooyin xooggan ayaa ka socda dalkaasi Kenya. Wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Kenya ayaan eegi doonaa xilli laba musharax ay si weyn iskugu hardinayaan. Dalka Kenya waxaa markaasi shalayto ka dhacday daawadayaal saaxiibayaal doorashooyinka dalkaasi Kenya oo markaasi indhaha si weyn ugu fogan yihiin. Dalkaasi Kenya ayaana ka bilaabatay shalayto doorashadaasi iyadoo si weyn loo wada sugayay, waxaana doorashadan oo lagu tartamayo xilka madaxweynaha iyo kuraasta kale ee baarlamaanku ku loolamaya musharaxiin tiro badan oo iska soo horjeeda. Loolanka doorashada ka socota dalka Kenya ayaa si weyn uga dhaxaysa madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto iyo hogaamiyaha mucaaridka Raila Odinga. Labada musharax ayaana si weyn loo saadaalinayaa in midkood ku soo baxo xilka madaxweynaha. Labadan musharax ee ku tartamaya xilka madaxweynaha Kenya ayay aad iskugu dhow yihiin codadka ilaa hadda la tiriyay oo gaaraya 1.2 milyan oo cod, waxaana tirin markaasi tijaabada ay la sameynayay ilaa hadda waxyaabay la tiriyay warbaahinta Kenya ama codadkii la tiriyay waxa wax yar markaasi ku horeeya William Ruto. Guddida doorashada qaranka Kenya ayaa ku mashquulsan tirinta codadka musharaxiinta tartamaya ee u dhaxeeya loolanka adag, waxaana madaxweynaha Kenya markaasi noqonaya musharaxa hela codadka la tiriyo 50% oo lagu daray hal cod, 50% plus hal cod ama cod dheeri. Doorashada dalka Kenya ayaa shalay ka bilaabatay dalkaasi guud ahaan, iyadoo markaasi muhiim u ah xasiloonida dhaqaalaha ugu weyn ee bariga Afrika, kadib markii laba ka mid ahi saddexdii doorasho ee ugu dambeysay ay hareeyeen rabshado iyo musuqmaasuq sababtay in dadyo badan ay nafwaayaan ama ay geeriyoodaan. Halkan waa xanta wararka, fadlan ku biiro ka mid noqo daawadayaasha ku xiran la garay qaybta wasaarahdaadu waxay kula tahay nagu dhaaf daawade saaxiib. waad ku maasantahay la socoshada barnaamijkan adigoo la jaanqaadaya wararka ugu waaweyn ka tagan Soomaaliya caalamka daawade saaxiib. intaanu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono wabahdi xanta wararka oo idin dhaafaya sida ay amaana Allah daawadayaashii saaxiibada sida tooska noogu xiranow nabadino. fadlan ha hilmaamin inaad la garayso aad share garayso daawade.